dalkaygi dadku waa dadkaygi dalku waa dalkaygi dadku waa dadkaygi duugayga noloshana ciidan uga dambeeyo inaan doorkan laytan duruufii dhacay baray duugayga noloshana ciidan uga dambeeyo inaan doorkan laytan duruufii dhacay baray damaciya hinaasiyo dirqimaha noloshee damaciya hinaasiyo dirqimaha noloshee ninka taa dareensani dibawliqa candhuufta oo dibnaacii la raamsado ninka taa dareensani dibawliqa candhuufta oo dibnaacii la raamsado ninkaan daris wanaagiyo samuhu aanu deeqino waxba hay dardaar warin taniba way ku yeelsiin annaga isbedel doon baan nahay madaxweynaan dooranay anta meesha fadhida iyo magaalada 3 meel 2 meel iyo bar waa la taageersan haddii tan labadan baarlamaan madaxa la isku dhufto la baabiyo haddana asiga leen dooranayna ilaa shalay asigaan dooranay aniga xafiiskana waa kan xafiis aan tirno madaxweyne waa ilaahay golo baarlamaan waa ilaahay aniga golaha baarlamaan maala qor lii qaatay igu soo fiijirin baan ka rabay oo ilaahay oo magarti maxaa ii keenay Soomaali baan rabnaa halaal aftiina la qashaa halaal baan rabnaa ninkii halaal aan wadinin waxba isku ma darsanay aniga Soomaali weyn aan rabnaa hadii qabiil noqoto ilaahay qabiil kala naaqabto dib dheer la soo galay isbedel doonku ku soo jiray walina aynu socono marxalad fiican aynu soo gaarnay inaan isu nimaano marka koowaadna idiin mahadcelino isna wada mahadcelino marka labaad hawshii aynu soo wadnay meesha ay marayso aynu isu sheegno meesha aynu sii aadi doonana isu sheegno haddii alla yidhaahdo waxaynu soo gaadhnay oynu kulligeen markhaati ka wada nahay in aynu hoolkan doorasho ku samaynay innagoo horena u soo samaynay marxalad iyo brosees dheer oo uu golihii badbaadada ugu horreeyey guddigii doorashada odayaashii dhaqanka iyo guddiga doorashada wada shaqaynaya ka bacdina baarlamaankii aynu hellay oo baarlamaanka odayaashii iyo ay soo xuleen guddigii doorashadu guddoonna aynu doorannay ka bacdina aynu madaxweyne doorannay haddii ilaahay idankiis 22-kii bishii August aynu soo dhaafnay halkaa marka aynu soo gaadhnay waxaa istaagay hal marxalad oo ahaa marxaladdii kambeynka iyo ololihii doorashada taa macnaheedu waxaa weeye doorashada dhacday waxaa la rabaa innagu waxaynu horey isugu sheegnay inaan runta isu sheegayna mar walba oo inaan been isu sheegayn oo inaan dhalanteed isu sheegayn oo waxa aynu jecellahay keliya inaan isu sheegayn madaxweynaha aan doorannay iyo baarlamaanka aan dhisannay iyo guddoonka aan doorannay ma ahayn si aynu ku talagallay ama sidii aynu rabnay inay sidan u dhacdo ma ahayn waxay ahayd in doorasho Jubbaland ay wada leedahay ay dhacdo doorashadii Jubbalandna dad yar baa afduubay oo meel luuqa la galay caalamkii waa dhegaysan waayeen dawladdii federaalkeed waa dhegaysan waayeen odayaashii dhaqanka waa dhegaysan waayeen isbedel doonkii waa dhegaysan waayeen murashaxiintiina waa dhegaysan waayeen intaa marka ay sameeyeen oo shacabkii reer Jubbaland in la afduubaya ay noqotay waxay noqotay shacabka reer Jubbaland inay dhahaan maya mana la afduubi karo taas ayay ku timid processkan iyo dawladdeena aynu wada leenahay oo intan iyo 99% waa sheegay horaan u sheegay shacabka reer Jubbaland hadduu askari yahay iyo hadduu shaqaale dawladeed yahay iyo hadduu yahay odayaal iyo haween iyo dhalinyarada 99% waa isbedel doon
intaa marka laga soo tago hawshii aynu soo wadnay ee kambaynku halkaasaynu ku hakinnay waxaan u gudubnay marxalad labaad oo ah maamul iyo hoggaan iyo qaab iyo structure dawladeed inaan u gudubnay mar haddaan halkaa joogno waa dhegaysanaynaa dawladda federaalka waxa ka soo baxaya iyo caalamka waana tixgelinaynaa annagu waxna kama qabno soo jeedintooda waana soo dhowaynaynaa sababtoo ah ma nihin dad doorasho ka cabsanaya ma nihin dad in la tartamo ka baqaya ma nihin dad in maxaanku idhaahdaa wax la wada leeyahay golo madal ah oo caalamka iyo ummadda soomaaliyeedba wada joogta inta la soo dhigo oo lagu tartamo qofkii ilaahay calafkiisa ka dhiga loogu hambalyayo oo lagula shaqeeyo dad ka baqaya ma nihin ma raadinayno kuraas ma raadinayno mansab ma raadinayno inaan wax la dhuumanno waxaan raadinaynaa wax dadka reer jubbaland oo dhan ay wada leeyihiin in la helo si kasta iyo dariiq kasta oo kaa lagu heli karana albaabkeennu waa u furan yahay waxaanaan marna aqbalaynin afduub waxaanaan marna aqbalaynin in meel luuqa oo mugdiya koox yar iyo shakhsiyaad inta sheekaystaan ay meel la galaan waxaanaan aqbalaynin odayaasha dhaqanka in sidii dabcan askarta iyo shaqaalaha xataa saas loolama dhaqmo xuquuq bay leeyihiin nidaam bay leeyihiin procedure baa la mariyaa xataa qofka haddii shaqada laga saarayo laakiin qof dhaqana oo soo jireena oo intaasoo fac ka fac ahaa dhaqankii in inta meesha laga saaro mid kale la soo gashado kanaa ayidsan in la dhaho ma aqbalayno aqbalaynin dhallinyarada iyo haweenka in la caburiyo oo wax inay fikirkooda cabbiraan ama rabitaankooda sheegaan in laga hor istaaga ma aqbalayno waxaanaan aqbalaynin soomaaliya in la kala qayqaybiyo oo la yidhaahdo dawladdii federaalka ahayd nooma imaan karto ma maqli karno ma arki karno isla mar ahaantaana dawlado shisheeye lala shaqeeyo loo gacan haatiyo dawladda soomaaliya iyadaa mas-uul ka ah siyaasadda dibadda iyo difaaca dalka immigrationka ama socdaalka iyo lacagta iyagaa mas-uulka ah dadka soomaaliyeed yar iyo weyn ma aqbali karaan mana aqbali doonaan mana aqbalayno taaka ka mida dhulka soomaaliya bad iyo berri iyo meel kastoo ay tahay in cid kala qaadato ama ay soo hoguriyaysa ma aqbalayno cid kasta oo daris nala ah waxaan ugu baaqaynaa wanaag walaalnimo darisnimo iskaashi dhinacyo badan leh ayaan ugu baaqaynaa kana codsanaynaa diyaarna ula dhah cadaawad iyo col iyo isnacayb marna ma soo dhowaynayno sidaasoo kale aanaan aqbalaynin taaka dhulkeenna ka mida badiya berri iyo cirtoona in lagu soo xadgudbo waxaan rabnaa caalamku inuu u hoggaansamo caalamku maaha markii la isku xadgudbi jiray caalamku shuruuc buu leeyahay sistamka shuruucda caalamigaa qabaan in loo hoggaansamo laguna kalsoonaado dawladda soomaaliya qaybta ay mas-uuliyaddeeda leedahayna loo hoggaansamo maamul dawlad goboleed shaqada ugu badan ee uu leeyahay waxaa weeye arrimaha bulshada shacabka iskuulaadka waxbarashada caafimaadka waddooyinka biyaha korontada maxaanku idhaahdaa dhismaha magaalooyinka horumarinta bulshada iyo kobcintooda taasay leeyihin waxaan rabnaa annaga isbeddel doonka dawlad iyo shacab iyo dhaqan iyo qof walba ujeeddadeennu waxaa weeye in la helo jubbaland midaysan jubbaland kala qaybsan marna ma soo dhowaynayno waxaan soo jeedinaynaa in caqligu shaqeeyo rabitaanka dadka ka xoog badinahaya ay meesha iska dhigaan
hadday been isu sheegeen ama wax dhalanteeda isu sheegeen wixii waa shaqayn waayeen xaqiiqda in la arko xaqiiqda lagu soo laabo shaydaanka la iska naaro bisinka la qabsado xoolahan iyo kuraastan iyo waxaan waa la wada leeyahay in dhulka la dhigo laguna tartamo sida ka dhacda Soomaaliya oo dhan Soomaaliya kama duwana ma aha gobol ka tirsan waddan kale waa gobol Soomaaliya ka tirsan dawlad goboleed Soomaaliya ka tirsan shuruucda Soomaaliya ku dhaqanta un bay ku dhaqmayaan reer Jubbaland waa dadkii ugu maxaan ku wada ku noolaa meelaha ugu barwaaqa badan Soomaaliya Soomaaliya oo dhan gogol u dhigi kara Soomaaliya oo dhan maxaan ku yiraahdaa nabadooda ka shaqayn kara isla mar ahaantaana ilaahay ugu deeqay inay wadamo kale xuduud la yeeshaan badda intaas leegna ilaahay haddii shidaal ku jira annagaa iskale haddii kalluun ku jiro annagaa iskale haddii macdan ku jirto annagaa iskale reer Jubbaland baa iskale kuwa innagaa maanta taladii joogno hadlayna kuwa dhashay ee yaryarka iyo kuwa dhalan doona mustaqbalkoodii waa ayagaana iskale innagaana u ilaalinayna intaan joogno innagana waa laynoo soo ilaaliyey dad kale inoo soo ilaaliyey meesha aan dhulka aan leenahay iyo xuduudda aan leenahay bad iyo bariba dad baa soo ilaaliyo halkaas soo gaadhisay ma innagoo joognaa innagoo sii daynayna sax ma aha waxaan ogol lahay in shuruucda caalamiga lagu kala baxo shuruucda caalamiga ciddii diidana xoog waxba kuma qaadi karto waxaanan soo dhawaynaynaa in wanaagga iyo shuruucda caalamiga loo hoggaansamo marka xuduud lagu murmaayo adduunka xuduud waxaa lagu murmaa markuu jiro waddan cusub oo dhashay waddan cusub oo hadda xorriyad qaatay oo waddan ah oo yimid kaasaa xuduuddiisa raaraadiya laakiin waddamada dariskuna waa jiri jireen kontonkii sane ee la soo dhaafay innaguna waa jirnay xuduuddana waa kala lahayd waxaa hadda soo kordhay waxay tahay marka intaa kadib Soomaaliya waxaa ka jiri jiray weligeed dhaqanka bini'aadmigu uu kala duwan yahay dawladaha iyo adduunka dadka ku nool laakiin Soomaaliya waxaa ka jiray dawlad soo jireen ah oo haddii dagaal dhaco iyo haddii dhibaato dhacdo weligeed aan burburin taasoo ah dhaqanka iyo dawladda markaas laga soo bilaabo 60kii ilaa hadda soo beddelaysa ugu yaraan intaasoo sanana dawlad la'aan baan ku noolay anu intay tahay ma aqaan dhaqanka Soomaalidu waa lagu maxadgudbaa waa lama taabtaan nidaam uu ku socduu leeyahay haddii dawladdu waagi dhaweedan dawlad la'aanta ahayna civil war ku dhacay dagaalkii sokeeyay Soomaaliya way ismaamulaysay nidaamay isku maamulaysay waxay isku maamulaysay oo yaa maamulayay dhaqankii iyo odayaasha maanta Jubbaland waxa ka socda in dhaqankii la burburiyo waxa aad la yaabo ah dhaqanka soo jireenka ee la yaqaan marka liiska laga saaro ee laga waayo qaarna lagu qoro kuwa ku qoran ee aqbalay in saaxiibkood maqnaado soo jireenka ahaa ee raba inay iska joogaan ee iyaguna maxaan ku dhahaa saaxiibkoodna laga saari by the way ha ogaadaan iyagana birta laga saari doonaa dhaqanku asaga la rabaa inuu is ilaaliyo yiraahdo hebel baa u ah ogaaskoodii ama nabadoonkoodii ama dhaqankoodii hebel oo iyagu ay ahaadaan dad midaysan annagu waxaan horseedaynaa ama inagoo dhan aan horseedaynaa dhaqanka in la dhiso oo uu noqdo dawlad ka sarraysa maamulka aynu dhisayno oo isagu ilaaliyo oo isagu kontaroolo oo isagu yidhaahdo may halkaa waad ka leexiseenee jooga oo marka la isqabsado ayagu yidhaahdo annagaa la wareegna talada taasaan rabnaa inay gaadhaan dhaqanka Soomaaliyeed waa ku faraxsanahay salaadiintii hadlaysay markaas waaye marka aan gaadhayn in qof u hadla salaadiinta hadda maba is yaqaanaan waaba kala dhumeenba sababtoo intaas oo kale oo aan ahayn baa lagu soo dhexdaayay maanta haddii la yidhaahdo barrita aan nidhaahno waxaan marti qaadaynaa dhaqanka reer Jubbaland hal qof magaalada ku hadhi maayo sababtoo dhaqan baa laga wada dhigay dadkii yaraa ee tirsanaa ee la yaqaanay maanta haddii la yidhaahdo dhaqanka reer Jubbaland hal beela dhaqankiina uu kaalay haddii la yidhaahdo hal beel waxaa imaanaya hoolkan in buuxis yaa imaan doonta qof la celin karaana ma jiro qof walba wuxuu leeyahay anigana dhaqan baan hebel baan because waa hore kaad la siiyay
وهورا اللي يدعي هبل بوانا ديدي هبل بنكو بدلينا تاو عارنا مركي إن دب لوجو نقضو تاريخ ده رقم كلامه حدري كرو والس يقانا بوك باتشرا سوتشرين باتشرا رقم كمان قف ما أنت لما قعابه حلو ديبي أجاسمه أما معن كنا ماري وقف سوتشرين أو برشلو صوت دورة كي أن سوتشرين كأن برشلو أنت فريسة يسكر عضو أي تراضو معن كودا هذا ويدن كاسي هبل بانوها صوبتا بيشو يدا قوان كيسكال inta marka laga soo tago ujeedada aan uga jeedaa waxay tahay dhaqan dhisan oo nidaam dawliga u dhisan oo nidaamkiisa leh oo aan ahayn dad maxaan ku idhaahdaa tabaalaysan oo aan la daryeelin oo aan la ixtiraamin aan ahayn dad la ixtiraamo oo nidaamka dawliga rool ku leh nidaamka ay ku leeyihiin shaqada la yaqaano nidaamka dhaqaale ay leeyihiin la yaqaano nidaamka amniga ay leeyihiin la yaqaano nidaamka ixtiraam ay leeyihiin la yaqaano ayay noqon doonaan haddii la yidhaahdo dhaqanka reer Jubbaland sidoo kale haddii alla yidhaahdo gabdhuhu waxay yeelan doonaan door aad muhiim u ah oo ah in ay qaataan doorka ay bulshada ku leeyihiin inagoo og inaan la'aantood cidna waxba qaban karin waa ka xunnahay si badan oo hadda xaaladdu ay tahay inayna ku sii jiri karin qodobadaas oo dhan waxaan rabnaa inay noqdaan qodobada lafdhabarkayno ah arrinta ciidamada reer Jubbaland waa wiilasheennii waa ciidamadeennii aynu ku horudnay maanta hoolkan kuma aynaan jireen haddayna iyagu jiri lahayn waxaan rabnaa daryeelkoodu inuu gaadho meesha ugu sarraysa iyaga iyo xaasaskooda iyo carruurtooda waxaan rabnaa qorshaha aanu ku tala gashannahay askari Jubbaland noocuu doono ha noqdo nabad sugid booliis daraawiish ma qaadan doono $100 iyo wax la mid ah haddii alla yidhaahdo sidoo kalena xuquuqda uu leeyahay ma waayi doono haddii alla yidhaahdo sidoo kalena wuxuu heli doonaa dalacaadda iyo darajooyinka uu xaqa u leeyahay haddii alla yidhaahdo horaan u sheegnay intii aan kaambeenka ku jirnay carruurtooduna waxay helayaan waxbarasho lacag la'aan ah sababtu waxay tahay iskuulka ma jireen iskuulku haddaan askarigu waardiyahayn miyuu jiri lahaa sidaasi darteed askariga carruurtiisa waa inay lacag la'aan ku dhigato wuu waardiyeynayaa lacagna wuu bixinayaa see ku dhici kartaa dawladdaa samaynaysa qorshihii uu kaa ku heli lahaa ayagoon iskuulaadka iyo dadka maamula waxba loo dhibayn sidoo kale cisbitaallada askariga iyo carruurtiisa iyo xaaskiisuba waxay ku lahaan doonaan daweyn lacag la'aan ah sababtoo ah askarigaa ilaaliya cisbitaalku ma dhisnaadeen haddaan askarigu jiri lahayn dhinaca dhaqaalahooda oo in kor loo qaada ay tahay mushaaraadka ay qaataan waxbarashada carruurtooda oo la kafaalo qaado iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyagii xaasaskooda oo la kafaalo qaado intaasba waa muhiimadda koowaad ee aan leenahay way ka mid tahay intaa marka laga soo tago maanta meesha aynu marayno waxaynu u baahannahay midnimo isbeddelku heerar buu soo maray kala duwan maantana meel fiican buu joogaa ciidamada Jubbaland waa ku ammaanayaa isbeddel doonka iyo nidaamka aan dhisnay xildhibaanada iyo qaybaha kale maamulkaba sida ay u ixtiraamaan ee ula dhaqmeen aad baan ugu mahadcelinaynaa inkastoo meeshii aan rabnay ayna weli gaadhin oo weli wax jiraan waxaanan codsanaynaa waan ognahay culaysyada saaran iyo barasharada saaran ciidamada laakiin inay ka taxadaraan qof kasta oo Soomaaliyana waxa uu geysto waa lagula xisaabtami doonaa horaan u sheegnay qof Soomaaliya oo muwaadina oo xorriyadda laga qaada 1 daqiiqo 1 saac oo waqtiga ka mid ah waa dembi aad u weyn asagoo wax dembiye gelin taa waxaan rabnaa markii cid waliba inay ogaato arrinta kale oo aad muhiimka u ah oo aan rabo reer Jubbaland gudaha iyo dibadda inay maqlaan
waxay tahay nidaamka aynu ku shaqaynaynay ee run sheegga ahaa inaynu run isu sheegna ahaa meeshii baan ka taagannahay warxumo tashiilka iyo wararka iyo sheekooyinka iyo maxaanku idhaahdaa derbila fadhiga hebel baa lala shawray hebel baa maaragtay odayaal loo diray hebel baa loo diray maxaanku idhahdaa dad kale waxaasi go'aanka idinkaa iskale annagu ma lihin inaan intaan ballan idinka qaadno oo idinku hoggaaminno idinkaga dhuumanno oo aad maqashaan hebel waa tegey taa marna ha sugina waxaan rabnaa maamulka aynu dhisnay waa shaqaynayaa haddii aan la yidhaahdo hadday xalka jubbaland ku jiro in baarlamaannada laysku daro ama baarlamaanka la kala diro sidii aan codsanayna lagu diro oo lagu celiyo odayaasha gacantooda diyaar baanu nahay inaan tartanno haddii la waayo oo nin waliba wax dhisto innagu isbeddel doon baan nahay maamul iyo nidaam baan dhisannay waana ka shaqaysiinaynaa haddii aan la yidhaahdo waxaan u soo jeedinayaa madaxweynihii hore axmed maxamed islaam maamulkiisii iyo cid kasta oo hawsha uu ku jiro kula lug leh xaqaa'iqa inay fahmaan runta abbaaraan dhalanteedka iska daayaan bulshada soomaaliyeed ee reer jubbaland ay soo dhex dhigaan waxa ay wada leeyihiin si ay uga tashadaan cidda ay u gartaanna ay ugu dhiibtaan taas oo ka bilaabanaysa odayga dhaqanku waa kee waa hebel oo aan ahayn kan ima rabe iga caydhiyo kan ana rabe kan ii qor oo ah xildhibaanka beeshu isku soo raacday in la soo qoro oo aan ahayn saddexii keen anaa midkaan raba ka qaadanaya oo ah in guddi doorasho oo xalaala oo la yaqaanoon qof u adeegayna bulshada jubbaland u adeegaya la helo oo la helo nidaam iyo sistem lagu wada kalsoon yahay oo aan qofna qof caburin karin halkaana dhala la dhigo sida soomaali oo dhan ka dhacdo dhaladaa lagu guro qofkiiba hal warqad uu ku rido isla mar ahaantaana waraaqaha la tiriyo qofkii cod hal dheeriya helana waad ogeydeen farool iyo cabdiweli caligaas hal cod oo xumaaday ku kala badiyeen soo ma xasuutaan haddii codkaasi uu saxsanaan lahaa oo faroole heli lahaa bareejay noqon lahay waa lagu celin lahaa taasoo kaleaanu rabnaa ninka xalaashaa diiddan ee raba mugdi inuu wax la galo siday noqonaysaa lagama yeelayo ma 2000 iyo qarnigan 20aad in lays afduubo oo lays caburiyo oo noocaas la yidhaahdo maxaanku idhaahdaa lama aqbalahayo waa wax aad u adag wey beesha caalamka waxaan u soo jeedinaynaa annagu isbeddel doon baan nahay maamul baannu rabnaa dawlad la wada leeyahay baan rabnaa halkaa in sanduuqanna loo dhigaan rabnaa ma baqayno kama baqayno waa ku kalsoonahay boqolkiiba boqol carabka iyaga iyo nasiibka iyaga iyo shacabka iyaga dadka meelaha ka soo hadhadlaya ama gudaha joogaan ama dibad ha joogaan ee mugdiga rabow halkaasay taallaa bahashii halkaa laysugu yimaado cid gaar wax u hagaajisan kartaana ma jirto dagaal ma wadno dhibaato ma wadno mushkilad badle ma wadno airboodkaasaan ka soo lugaynay ood ogeydanoo halkaa ku nimid 6 bilood baannu lahayn doorasho xor iyo xalaalaan rabnaa waa laysbarbar maray halkaasaa la aaday ballantii aan qaadnay waxaan diyaar u nahay in aynu meesha ugu dambaysa geyno waana guulaysanaynaa haddii aan la yidhaahdo reer jubbalandow waan hubaa markaad caawa tagtaan dad baa waxay jecel yihiin idiin sheega waxay jecel yihiin bay idiin sheegaan oo riya dhalanteeda riya maalmeeda hebel baa tanaasulay hebel baa cararay hebel baa la dilay hebel baa la xidhay waxaasaa la yidhaahdaa waa la isxidhi karaa waa la isdili karaa laakiin lamana carari karo lamana tanaasuli karo warkaas oo ma cadda ballanteennuna waa taas waa madal
baynu isku maxaan ku idhaahdaa ku wada hadalnay bishii ramadaan oo dhan iyo inta kada beelbeel baan u wada hadalnay bulshadana qaybaheeda waa wada hadalnay inaan intaan idin abaabulnay oo aynu isu nimid oodna abaabusheen oo halkaa aynu soo gaarna aan kala dhuumanna ma dhacayso waxaan rabnaa xanta iyo beentu inay hadho hebel baa lacag la siiyey lacagta la qaata xaggee lagu cunaayo lacagtu sharaf iyo karaamo iyo ixtiraam bay u baahanta warkaas soo ma cadda shacabkaan lacag ma siisanayna annaga rabitaankoodana lacag ma siisanayno caalamka waxaan ugu baaqaynaa annagu u soo jeedinaynaa una caddaynaynaa diyaar baan u nahay xal kasta oo Jubbaland unitigeeda iyo midnimadeeda lagu ilaalinayo diyaar baan u nahay laakiin afduub iyo caburin iyo in tiim wax boobaan ma aqbalayn dawladda federaalka ee Soomaaliya waa dawladeennii maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweynaheennii xasan khayre waa ra'iisul wasaaraheennii mas'uuliyad baa Jubbaland ka saaran ma aha dad ajaaniba ma aha waa dawladdii waa xaq bay u leeyihiin inay ka hadlaan xaq bay u leeyihiin inay tala soo jeediyaan xaq bay u leeyihiin inay shuruucda dalka ilaaliyaan taasoo ah in doorasho xor iyo xalaal ka dhacdo caalamka waxaa runtii aan ku eedaynaynaa markay hadlayaan waxay yidhaahdaan doorasho xor iyo xalaal ah oo la wada leeyahay oo si nabada ku dhacdo laakiin afkooda ma dhaafto kamana inay fuliyaanna weli ma aysan isu taagin taana waannu soo dhowaynaynaa in la helo xor iyo xalaal iyo mid la wada leeyahay qodobka ah caalam ka socda waddanka galmudug annaga shacab Soomaaliyeed baan nahay galmudug wanaagga ka dhaca uuna saamaynaya waana u baahannahay waana taageerayna waana ku farxayna galmudugna waxaan u hambalyaynaynaa in ay isku duubmaan dawladdooda dhegaystaan maamul ay wada leeyihiin dawlad goboleed ay wada leeyihiin ay wada dhisaan iyagoo maanta wax yar ula jira saaxiibbo badan oo galmudug ka soo jeeda oo halkan yimid oo isku dayay inay halkan dhibaato ka abuuraanna waxaan u soo jeedinaynaa arrinta galmudug yaysan dhibaato ku celinine hadday rabaan meelo kale dhibaatada hageeno galmudug ha ka daayaan dhibaatada shacabka reer Jubbalandna saaxiibadii halkan rabay inay fidmada ka abuuraan way idin yaqaanaan shacabka reer Jubbaland mana dhagaysan doonaan waxaad sheegaysaan mana fuli doonaan mashruuca aad wadaan dukumentiga aad qorteenna waa aragna waxaan rabnaa haddii alla yidhaahdo inaan sidoo kale bogaadinno anigoo magaciinna ku hadlaaya shirka dib u heshiisiinta ee Hobyo beel ka mida beelaha Soomaaliyeed ugu soo xidhmay ay ku heshiiyeen isku midoobeen waan u hambalyaynaynaa waxaanan soo jeedinaynaa beelo badan oo Soomaaliyeedna inay ku daydaan kuwii wax ka hadlaysan yihiin annaguna waa taageeraynaa nabadda ka dhacday Hobyo maxaan ku idhahdaa hawsha ka socota Dhuusamareeb galmudug ka socota iyo midda xeraada ka dhacday nabadda annagoo bogaadinayna ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo madaxweynaheenna maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dawladdooda doorka muhiimka ay ka qaateen galmudug iyo dhulkaa waxaa la islaa waa meelaha ugu adag laakiin waxaa muuqata maanta inay dejiyeen taariikhduna way xusi doontaa haddii aan la yidhaahdo Jubbaland teedu waa sahlan tahay innagaa ku filan haddaynu u baahannana waa inoo imaan doonaan haddii aan la yidhaahdo waxay keliya u baahan tahay teennu waxay keliya u baahan tahay wax yar bay u baahan tahay madaxweynaheennii hore axmed maxamed islaam oo fahma xaqaa'iqa runta arka bismillaahi raxmaan raxiim yidhaahda kuwa khaa'imiinta ee dhegta wax ugu sheegaya gadaal ka fadhiyana yidhaahda iga daaya waa ay kharribteen oo xaqiiqda abbaro oo bulshadiisa soo dhex fadhiistoo yidhaahda aynu tashanno intaa quray u baahan tahay oo aadan qabin muxuu ahaayey waajibinaya ciqaab dalku waa dalkaygii dadku waa dadkaygii dalku waa dalkaygii dadku waa dadkaygii duugayga nolol
noloshana cidan uga dambeeyo inaan doorkan laytali duruufii dhacay baray duugayga noloshana cidan uga dambeeyo inaan doorkan laytali duruufii dhacay baray damaciya hinaasiyo tilqimaaha noloshee damaciya hinaasiyo tilqimaaha noloshee ninka taa dareensani dibawliqa candhuufta oo dibnaacee la raamsado ninka taa dareensani dibawliqa candhuufta oo dibnaacee la raamsado samuhu aanu deeqino waxba hay dardaar warin taniba way ku yeelsiin